Assalaamu calaykum. Waan salaamayaa asxaabtayda qaaliga ah. Maanta waxaan idin hayaa sheeko yar oo aad u gaaban oo dhab ahaantii xigmaddeedana wadata. Waxaa jiri jiray ama waayadii hore soo maray dunidan aynu ku noolnahay boqortooyooyin fara badan. Boqortooyo kastaba waxaa lagu xasuustaa dhacdooyin iyo arrimo la yaab leh, sida inay geystaan xasuuq, boob iyo waxyaabaha la halmaala. Waxaa jiri jiray boqortooyin sidoo kale wanaag lagu xasuusto, sida boqortooyooyin fara badan oo dunida Islaamka soo maray. Haddaba mid ka mid ah boqorradii dunida soo maray ayaa wuxuu ahaa nin aad u la yaab badan, sida aan sheekada ku soo xigtay. Dhab ahaantii waxa uu ahaa nin aad u xarago badan oo ay dhammaan dadka boqortooyadiisa ku xiran aad u la yaabi jireen. Ninkan ku hawlan quruxda naftiisa. Waxa uu shakhsigan ama boqorkan mar kastaba ku hawlanaan jiray inuu naftiisa uu ka dhigo mid aad u xarago badan. Waxaanu soo xidhan jiray daqiiqad kasta iyo second kastaba dhar aad u qurux badan, isagoo mararka qaar is odhan jiray dharkan kumaan soo bixin. Kadib haddana waxa uu samayn jiray inuu dhar kale oo nooc ka gedisan oo aad u qurux badan soo xidho. Boqorkan ayaa ammaantiisa iyo sheekooyinkiisa iyo hawlihiisa wax maqlay bulshada sida u dhan tahay. Bulshooyinku kolley hadallada isweydaarsanayeen ayaa waxaa laba faataale ama laba tuug ay maqleen inuu yahay boqorku mid aad u dhar jecelna xaragada iyo isteelka. Kadib labadii xariif waa ay u soo fikireen boqorkii. Haddaba boqorkan wuxuu ahaa mid aad looga cabsado, aadna dadku ay ga dambeeyaan. Waxay dadku mar kastaba sacabka u tumi jireen iyagoo ka cabsanaya dhibaatada boqorka. Maxaa yeelay boqortooyooyinka sidaan wada ognahay, boqorku haddii uu amar bixiyo, amarku waa sida uu bixiyay. Waxa uu badanaa boqortooyinka lagu gartaa ama lagu xasuustaa inay yihiin qaar kaba sii daran taliyayaasha ciidamada militariga ee wadamada ku qabsada afgambiyada ee dadka laaya. Boqortooyinku badanaa waxay fuliyaan wixii ay rabaan. Waa qoys wixii kolba maankoodii maskaxdooda ka soo gaasamaya. Waxbayna hadalkeed ugu daaline, labadii xariif waxay u fadhiisteen oo ay u gogol dhigteen sidii ay boqorka uga dhaadhicin lahaayeen nashqad ay hantidiisa ku soo dhacaan. Labadan xariif cidda ay u tashanaya waa boqor magaalada laga cabsado, dilkoodana aanay kuba qaadanayn wax aad u badan. Waxaaba dhici karta inuu xitaa aydiisa siin karo intuu jarjaro. Haddana labadan xariif oo waqtigiiyo waayuu ku adkaaday ayaa waxay ku fikireen in maadaama uu yahay boqorku nin aad u dhar jecel, bal xagga dharka iyo labiska ay ka maraan. Waxay sheeko magaalada gashadeen ah inay samaynayaan dhar aanu arki karin qofka doqonkay, qofka caqliga badan mooye. Dabeeto boqorkii ayaa sidii sheekadu ay maalinta ka sii dambeysay dadku iskugu sii dhiidhiibayeen sida Soomaali badan ay samayso. Oo maanta sheekada halkan aad ka sheegto aad maqlayso iyadoo kugu soo noqoto qof kale kaaga dhigayaba sheekadii oo dhaba. Haddaba boqorkii ayaa sheekadii gaadhay iyadoo la taliyayaashiisa arrinkii uu wax ka weydiiyey markuu isna maqlay. Mid ka mid ah la taliyayaashiisa ayaaba yidhi isagoo doonaya inuu boqorku ammaano, anaaba boqor oo arkay dadka waxa iyo arrimaha ku shuqulka leh. Balse boqorkii markii uu wuxuu amray in labada nin loo keeno. Boqorkii ayaa labadii nin xaggiisa loo soo galbiyey. Dabeeto labadii nin waa qaabkii ay qorshaha u dhigeen. Isla markiiba waxa uu sharaxeen qaabka boqorka ay hawshiisa ugu qabanayaan iyo waxa ay rabaan inay u sameeyaan. Boqorkii ayaa yidhi, waxaan maqlay inaad sameynaysaan ama aad samaysaan dhar aanay arki karin dadka doqmaha. Kaliya ay arki karaan dadka caqliga ama caqliga la saaxiibka ah. Boqorkii oo arrinku ka iibsamay oo dhab ahaantii isku haysatay inuu yahay nin aad u caqli badan, ayaa isla markiiba nimankii tuugtahay waxay iska eegeen ilqoodha. Dabeet mid kastaba dhinaciisa way ka dhoola cadeeyay maadaama uu arkay in arrinkoodii uu suurta galay ama fikirkoodii uu boqorku qaatay. Haddaba maadaama boqorku qaatay maaha inay cabsidii labadii nin ay ka dhamaatay. Labada nin mid ka mid ah ayaa mar kastaba wuxuu saaxiibku ku celinayay war saaxiib. Ninka aynu fikirka iyo khidada aynu degana waa boqorkii magaalada. Waana ninka aynu ognahay inuu wuxuu doono samayn karo. Dilkeenina aanay waxba ku qaadanayn. Imeynu ka joogno fikirkan, balse laba nin oo meel wada maray mid laga waayay ma dhiirigeline. Wuxuu saaxiibku tuqaantuqiyay fikirkii ay wateen. Boqorkii ayaa waxa uu diyaariyay labadii nin qol. Waxaan uu keenay wixii ay rabeen. Labadii nin mashiinkooda ha iska daartaan. Waxa halka qolkooda mar kastaba laga maqlayaa sanqadha mashiinka ay dharka ku toliyaan. Dabeeto mid ka mid ah boqorka ilaaladiisa ayuu boqorku wuxuu ku amray in labadii nin hawshii halka ay marinayaan maadaama boqorka ay u toliyaan ama u sameeyaan dharkii uu boqorku ku hamiyay ee uu boqorku doonayay in uu ku muujiyo xarragadiisa.
balse ninkii ayaa waxa uu arkay mashiin, waa ninkii boqorka uu soo dirsaday ee ahaa afhayeenkiisa. Waxa uu arkay mashiin qolka iska sanqaraya labadii nin oo halkaa iska fadhiya iyo mashiinkii oo keligiis wada. Dabeetana waxa uu is yidhi labadii nin waxay wadaan iyo webiga yaa weyn. Dabeetana markiiba waxa uu ugu hanjabay inuu boqorka u soo sheegi doono maadaama aanay hawshiisi wadin, balse markuu albaabka sii baxay wuxuu xasuustay dadka doqonka ama doqmo ah maanka gaaban leh ma arkayaan dharkan calashan ay samaynayaan dee nimanka injineeradan tuugada ah. Dabeetana markii wuxuu is war haadhe haddii aad tiraahdo dharka nimankaas samaynayaan maan arkin, waxaa dhici karta in lagu aqoonsado inaad tahay qof doqon ah. Boqorkii waxaad ku tiraahdaa boqorow dee saasaa jirta. Isla markiiba isagoo showraya labadii nin waxay isweydiiyeen, waxay markiiba arkeen ninkan inuu fikirkii ay wateen uu kusoo dhacay. Dabeetana waxay markiiba ku yidhaahdeen war bal ka waran nashqadan dharkaan u samaynay siday kula muuqataa, bal ka waran sharaxaada iyo muuqaalkaan u samaynay. Dabeetana wuxuu markiiba la soo booday waaw, dharkan dunida intaan ku noolaa waan arag. Haddaba waxa weeye labadii nin oo aad u dhoolla caddaynaya oo arkaya in ninkani uu fikirkoodii qaatay difaacna u galay ayaa waxay yidhaahdeen waa si wanaagsan boqorka sidaa ugu sheeg. Ninkii markiiba babaha yidhaahdo. Boqorkii ayaa markiiba daylan waa nin laga sugay warbixin. Boqorkiiba wuxuu weydiiyey war bal nimankii hawshii halkii marinay. Markaasuu yidhi boqorow anigaaba yaabay quruxdooda. Dabeetana boqorkii ayaa maalmo sugay. Dabeetana waxa weeye dee wax raagay rag kuma sameeyo. Isla boqorkii mar dambe ayaa waxa uu soo diray mid ka mid ah kalkaaliyaashiisii isagoo u sheegay in bal raggii hawshii halkay marinayaan ay keenaan ama aad ka warkeento. Dabeetana boqorkii ninkii uu soo diray markiiba qolka ayuu dafsoo yidhi waxaan u arkay meesha oon hal shay ul iyo mashiinkoos ka sanqaraya iyo labadii nin oo halkaa xusul duubtay wixii nimcooyinkii Ilaahay ka siiyay ninka boqorka ah. Dabeetana waxay ninkii ku yidhaahdeen war maxaad doonaysaa. Dabeetana ninkii wuxuu ku yidhi war nin boqorka ay soo diray xaaladaasaan u socdaa miya dharkii. Markaasuu yidhi oo miyaad arkeen dharka quruxda leh aan hagaajin. Markaasuu wuxuu xasuustay in dadka doqmaha dharka ay nimankan tolayaan aanay arkayn. Dabeetana wuxuu yidhi haar waan arkayaa dharkan aadka ugu quruxda badan leh aad tusheen maxaan idinka gaarsiiyaa boqorkii. Dabeetana waxay ku yidhahdeen boqorka waxaad naga gaarsiisaa in dhar badan oo nashqada ka badan oo ka qurux badan ay nimankii hawshooda ku jiraan una baahan dahab fara badan. Nimankii dahab horena waa ku maqan dahab kalena waa dalbadeen. Haddaba boqor leydhi dharkaagu waa dhar ka heer sareeya dadka bini'aadankaba, bal maxaad u malayn wixii dahab iyo hanti uu hayay intii uu nimanka siin karayay waa uu siiyey. Haddaba boqorkii oo fariintii gaadhay ayaa wuxuu yidhi war waxaan rabaa inaan magaalada ku soo wareego. Waxaan rabaa dharkii ay nimankaas sameeyeen in sida ugu dhaqsiya badan lay keeno. Nimankii tala ku caddaatay. Dabeetana mid ka mid ah saaxiibadii labadii nin ee tuugay saaxiibka yani caqliga la saaxiibka waxay markiiba yidhaahdeen war nin hawsha waa sidaan u galnay. Mid ka mid ah ayaa wuxuu iska dhigay nin dhar sida. Dabeetana gacmihiisa ayuu kor u qaaday isagoo xaggii boqorka u dhaqaaqay. Boqorkii ayaa yaabay oo yidhi war haadhe nimankani gacmahoodu way marayn korna waa u hayaanay waa maxay talo sidaas. Markaasuu wuxuu boqorka markiiba kusoo dhacday war waa kuwii nimanku lahaa nimanka qofka doqonka ah dharkan samaynayna ma arkaane mala haddii arrinkii baaba doqon baaba tiba war iskiij. Boqorkiiba waxaa loo sheegay in dharkii uu guddoomo boqorkii cidla guddoon dharkii loo xidh. Dabeetana boqorkii waxa uu go'aansaday inuu magaalada ku soo wareego maadaama uu dhar cusub gashaday. Waxa uu boqorkii amray in dhammaan bulshada la iskugu keeno goob fagaara ah si ay u arkaan dharka boqorka loo xidhay. Haddaba boqorkii ayaa dharkii ku soo labistay khiyaaliga ah waxaanu soo fulay faraskiisa isagoo qaawan. Dhammaan bulshadii yaabtay. Qof kastaaba ilqoodha iska weydiiyey war waa tiira lahaa. Boqorka waxa uu soo xidhanayaa dhar qofka fariidka ama caqliga la saaxiibka kaliya uu arkayo. Isagoo kan boqorku qaawan. Qof kastaaba wuxuu is yidhaa war waa fikirkii qaldanaaba qof kastaba ka dhaadhac wuxuu war haddaad tiraahdo dhar boqorku waa qaawan yahay waxa weeye doqon baa lagugu tilmaami doonaa. Dabeetana mid ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa oo ah ilmo yar ayaa wuxuu yidhi war boqorku waa qaawan yahay war boqorku waa iyagoo dadka dhammaantood iswada geejinaya. Qof kastaaba halkiisa uu baarkan ku galay. Dee ma jiro qof odhan kara boqorow waad qaawan tahay, balse ilmaha yar mar kaliya markuu afka kala qaaday ayay dadkiina waxay raaciyeen war boqorku waa qaawan yahay boqorku. Waxaan rajaynayaa weli sheekada inaad saaran tahay wixii uu boqorku sameeyay inaad sugayso. Haddaba saaxiibkay qaaliga ama walaashada qaaliga waxaan kuu rajaynayaa inaad wax badan ka dhugatay sheekadan. Haddaba aan ujeedadan u soo qaatay sheekadan xoogaa ka yara dhaadhiciyo
sheekadan waxaan usoo qaatay waxay tahay haddii 100,000 oo qof ay ku raadaan war sidaas sheekadu sidaa ma waa sidaa ama waxaas lasoo wada waa sidaa ha qaadan keliya markastaba wixii indhahaagu arkaan markastaba ka go'aan qaado. aad baan idin salaamaya asxaabteeda qaaliga. waxaan rajeynaya haddii aad nagu cusubtay inaad channelka subscribe saari doonto, like-na aad nagu dhiirigelin doonto. aad baad mahadsan tahay. markastaba gacmo furan kusoo dhawaada ayaan idin leenahay.